يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الضرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. إلهي وحو نقول واجبيي ونبي نقول لي يا حقوق ذات قلوبتنا حقوق كلية حنها أننا حقوق كلية لسان كان يعرف كأننا حقوق كلية حقوق ذو قلبك أنه كلية وحوينا التعظيم والتوقير والمحبة إن النبي قوينا إنه وأين شعلانه وحقوق ذو نقول لي قلبك قال قرب أيها المسلم. maalmahan waa la wada soconaa dhibaatada jirta iyo xadgudubka lagu hayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo diinteena oo reer galbeedka iyo warbaahintooda iyo sufahadoodu ay ku hayaan dawladahooda iyo madaxdooduna ay markay ugu yar tahay ama ku taageersan yihiin ama ay tahay ma samaynin kumana talinin laakiin ima xumaynin waa ka ugu roon kama xumaanin in anbiyada ilaahay iyo rususha lagu xadgudbo wax cusub maaha maalintii ilaahay rususha soo diray xaq iyo baatilkuna laga tanka bilaabeen ilaa qiyaamadu ka imaanayso cayda iyo aflagaadadaasi waana jirtay waana jiri doontaa bal xaq jirnimada reer galbeedka qaybo kamida waxa kamida maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iqi dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam ina noqotiyo xorriyatulqowl ومحتى كان حرية القول نقوم ويدي وأمرك اللي قدونه ميديا يبلشدة يوحردمي وحيانا يدون إن ده هو يكلابطا نكرر قلبي ده وحقيستا ملف كيسا الله بارا يا مالنو نختار متجي ددبو الله هاو والله بريبو نختار كلا كل ما أديك كوالني هدو وحدي له وإن مسلم تروريستوها هدو ولي وكصابحه إن ماشي وكصابحه عيد فايل كيس يدبوا ما يكتو إذن والله تشيفيانا بنام بين لنا لكن تاسي وحي يسبدلي كرتا مركز أدوه هذا الشو مركز أدوه معتقد كاجي الدين تاد الدفاعته مركز أدوه صاب بندكتو نبي محمد وحوها عليه الصلاة والسلام لكن هذا ضحي شلون يسوي سلادي تلو النبي مياد ما دودي كريس محاتر هذا هذا ضد النبي قاعد قرنين دم الدفاع كريس وأمرك الله بعض هذا هذه قلبي قاعد كوينين دتك كلو وينك بدأ دعين كريس. لذلك يا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحيري لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه إن أوكر قارتان وأد وينيسان يا رسولك إلهي إنكو صادق وحو النبي يري صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قفكين إيمان مهل من قارن إلى وأن يقتشع الله والدكيس يا أولادي سيدت كودن محبة قلبك وين تعالى إن والدك كتشعشها إن أهلك عرورت هذا كتشعشها إن النفط هذا كتشعشها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قلبك وين لقاه لا أيها المسلم حقوق ذو كل يا لسانك يعربك وحوية إلهي باي ورفعنا لك ذكرك ذكرك يا حسك عن كرقاتني قتادة وحير رحمه الله آية معناه وحويان رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة نبي حسكي سيد ذكركيسا أي إلهي كرقاتي الدنيا آخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما جرى قف خطبينيا يقف صلاة كنيا يقف أدميا إلا وحا سوق لي توحيدك يا سوق لي توحيدك لو كوبيه لا إله إلا الله محمد رسول الله تداسى إلهي سبحانه وتعالى شرفتي سوكر قاط
xuquuqda uu ku leeyahay waxa weeyaan qofka muslimkaa jawaarixdiisa iyo xibnihiisa inuu juhdigiisa bixiyo ku bixiyo nebiga difaaciisa sala allahu calayhi wasalam lisaankiisa iyo carabkiisa inuu nebi maxamed ka difaaco maalkiisa nebiga inuu ku difaaco xibnihiisa inuu ku difaaco oo naftiisa uu u dhiga nafta nebiga ku difaaca sala allahu calayhi waalihi wasalam walidaalika bay saxaabada ansaar nebigu markuu laylat alcaqaba uu la kulmay oo heshiiska uu la gelaya baycada ayay waxay ku dhaarteen inay nebiga difaacayaan oo ay ka ilaalinayaan wax kaste siday u ilaaliyaan waxa weeyaan ahalkooda iyo naftooda iyo ilmahooda ay u ilaaliyaan inay u difaacayaan sidii bayna ka dhabeeyeen oo u difaacay gaaladu waxay doonayaan nuurkaas sida u iftiimaya barakada iyo khayrka weyn in ay demiyaan bay rabaan yuriiduuna liyutfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun ina yarba intuu xaggaa istaagay ayuu leeyahay ceedceeddaas ayaan afuufi oon sidaa ku demin miyuu demin karaa nebi maxamed ayaa demin karaya nuurka allah uu soo diray ayaa baktin karaya sala allahu calayhi wasalam waxay wax ka sheegeen fii shakhsiyatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddiis sharaftiisa cirdigiisa karaamadiisa calayhi salaatu wasalaam waxay wax ka sheegeen diintiisa nebiga risaaladdu alla u soo dhiibay dacwadiis ayay wax ka sheegeen fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuula allah hooyi iyo aabbaan kugu furanaynaa rasuulkii ilaahayow laakiin ilaahay baa nebigiisa u sheegaya ilaahay waxa uu nebigiisa ku leeyahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira nebi allow adigu uma horaysid ambiyaadii kaa horaysay rasushii kaa horaysay gebi cadow bay lahaayeen nebi walba cadow buu leeyahay oo mujrimiintan ka mida ilaahay baana kuu kaalmay nebi allow nabigeenna sal alla alay wasalam aflagaadayntii hore iyo tan lagu samaynayo midna wax yeeli maayo maxaa yeelay rabbigii baa doortay oo rabbigii baa qadariyey oo rabbigii baa kor yeelay oo inta dhulka joogtiye inta kor jirtaba asagay ammaanayaan oo ku sallinayaan sida rabbigeen qur-aanka kariimka inoogu sheegay allah baa ammaanaya oo malaa'igta dhexdeeda ammaanta nebi maxamed ku haya nin alla ammaantiisa haya gaal buuryo qab ah oo najis ah caydiisu maxay yeeli waay malaa'igta rabbi baa tabaaraka wa tacaala ku sallinayso u ducaynaysa maxay yeeli kartaa gaal hadal xun oo uu sameeyey mu'miniinta intaa ammaanaya bilyan iyo nus muslimiinta oo caalamka maanta ku nool ayaa ku sallinaysa oo u ducaynaysa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ammaanaysoo jecel salawaatu rabbi wasalaamu calayh gaal xun warkiisu muxuu yeeli waya marka hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay adna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad silada yaan dadku ku garanin soocankaa maaha yaan dadku ku garaninee koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wassalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa warramaya markaa dadku saasuu u rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynayn oo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam sala allahu cala nabiyi maxamedin wcala alihi wasaxbihi wasallam